guddiga garoonka diyaaradaha ee magaalada Caabudwaaq ayaa ka warbixiya halka uu maraya dhismaha xindaabka loogu wareejinayo garoonka diyaaradaha ee Caabudwaaq International Airport si uu uga ilaalisho xayawaanka iyo wixii kale ee amniga garoonka wax u dhimaya iyagoona codsaday in laga qayb qaato dhismaha oo hadda meel bilow amaraya Cabdulqaadir Faarax Guray iyo Shuuka Faarax Awl oo ka mid ah guddiga garoonka diyaaradaha ee Caabudwaaq ayaa ka warbixiyay halka uu maraya dhismaha xindaabka garoonka loogu wareejinayo airportka saad la socotaa ama waxa ka bilaabatay shaqadii facingka qaybtii labaad airportka oo ahayd facingka waana ku ballansanayn in la dhiso waxaan rabnaa inaan idin soo gudbino hawshu meesha ay marayso oo aad u jeedi doontaan sawiradeeda iyo qaabkeeda waxaan dhammaan dadka danaynaya ama inta aan ka warqabinba u sheegaynaa hawshu waa socotaa inta la rabo xindaabka in lagu wareejiyo waa 710 mitir oo isku weer ah ilaa adigu 400 oo tiir ayaa hadda la taagay intii kalena waa insha Allah waa hawshu waa la wadaa oo waa socotaa waana sugaynaa walaalahay airportka sidii aan isugu ogeyn jaaliyadaha dibadda iyo dadka deegaanka u dhashay ee doonaya deegaanka horumarkiisa waxaanu isku ogeyn in facingka airportka laga shaqeeyo si looga xanaaneeyo ama looga ilaaliyo xoolaha iyo dadka intaba iyo gaadiidkaba si airportka uu helo securitykiisu u sugnaado garoonka sidii injineerku ku qiimeeyay waxa lagu qiimeeyay dhaqaalaha galaya asagoo aysan ku jirin gacanta iyada aysan ku jirin 180 baa lagu qiimeeyay iyadoo gacanta ku jira sida daradeed waxaan codsanaynaa oo jaaliyadaha dibadda iyo dadka deegaanka u dhashay iyo inta horumarka deegaanka jecel ama Soomaalinimadu ay ku jirtaba jecel waxaan ka codsanaynaa inay nagala qayb qaataan dhismaha facingka airportka gacanna ay naga siiyaan si kastaba ha ahaatee dhismaha garoonka diyaaradaha ee Caabudwaaq International Airport oo qurba joogta deegaanka ay door muuqda ka qaadatay ayaa laga dhowr sugayaa jawaabta ay ka bixiyaan dhismaha xindaabka loogu wareejinayo garoonka oo haddii uu hirgalo wax weyn ka tari doonta amniga iyo bilicda garoonka ayaa la Cabdullaahi Jaamac